السلام عليكم جاليال soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maantana waxa uu ku saabsan yahay dalkeena ama dhulkeena Soomaaliya waxa idin soo gudbin doona anigoo Cabdullaahi Xareed Ciid Mishcal haddaba daawasho wacan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelka Ilayska Dunida fadlan subscribe dheh gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub magaca Soomaaliya waxa uu ka yimi ama laga soo minguuriyay erayo fara badan waxaase ka mid ah Soomaal duumaal oo macnaheedu tahay shacab xoolo badan lagu daray Soomaaliya waxay leedahay magacyo badan waxa ka mid ah dhulkii udgoona dhulkii Eebe iyo geeska Afrika wadanka Soomaaliya waa dalaca geeska Afrika oo dhinaca galbeed xad kala wadaaga wadanka Itoobiya dhanka waqooyi galbeed Djibouti kana xiga dhanka waqooyi gacanka cadmeed dhinaca bari waxa ka xiga badweynta Hindiya dhinaca koonfur galbeed waxa ka xiga dalka Kenya Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika dhererkeeduna yahay 3333 kiiloomitir Soomaaliya waxay leedahay deegaano sarsare dhul daaqsimeed iyo buuraley cimilada Soomaaliya waa mid diiran yacni kuleel xigeen ah mararka qaar waxa soo dhaca dabaylo iyo rabab aan joogto ahayn Soomaaliya waxa ay ku fadhidaa dhul baaxadiisu tahay 635,541 kiiloomitir oo iskuweer ah tirada dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 24 milyan halka tirada gobolada Soomaaliya ay dhan yihiin 18 gobol dalka Soomaaliya gobolka ugu badka yar waa gobolka Banaadir waana gobolka ugu xuduudaha yar waxaana xuduud la leeyahay gobolada Shabeellooyinka halka gobolka ugu badka weyn uu yahay gobolka Bari gobolka ugu xuduudaha badan waa gobolka Baay oo xuduud la leh gobollo ay ka mid yihiin Hiiraan Bakool Gedo Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe sidoo kale gobolka Baay waxa laga helaa buur Haybe oo ah buurta ugu dheer koonfurta gobolka Jubbada Dhexe waa gobolka kaliya ay maraan labada webiga Shabeelle iyo webiga Jubba waxa uu qani ku yahay dooxooyinka kaymaha iyo ciidda hodanka ah ee beerashada ku fiican webiga Shabeelle waxa uu Soomaaliya ka soo galaa gobolka Hiiraan isagoo ku dhamaada meesha la yiraahdo Dhaytubaako halka webiga Jubbana uu Soomaaliya ka soo galo gobolka Gedo waxa uu ku dhamaada badana kaga darsamaa goobta dalxiiska ku wacan ee Goobweyn dhulbaraha waa xariiqa toosan ee adduunka u kala qaybiyo waqooyi iyo koonfur waxa uu Soomaaliya ka maraa tuulo la yiraahdo Sanguuni oo ku taala gobolka Jubbada Hoose intaas ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkeena maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho xogo iyo macluumaad badan oo ku xiiso galiya hadda booqo oo subscribe dheh channelka Ilayska Dunida oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelkeena nagulana soo biir caalamkan cusub oo aad ka faa'iidi doontid xogo iyo macluumaad ka yaabiya